ujeedada socdaalkaygu waxay ahayd in xiriirka taariikhiga ee adaga dhinac walba sidii loo sii xoojin lahaa hadday tahay dhinaca amniga iyo hadday tahay dhinaca bulshada iyo hadday tahay dhinaca waxbarashada iyo hadday tahay dhinaca dhaqaalaha si wanaagsan ayaanu wada hadalnay si wanaagsanna wuu noogu dhammaaday runtii waxaanu ka soo baxnay sidii horeba loo sheegay shir qiimo leh oo taabanayay meelo fara badan iyo arrimo badan oo qaarna halkan aanu ka sheegi doono qaarna ay yihiin ciddii ay khusaysay uun inaanu haddii alla mustaqbalka kala hadli doono sidaa la sheegay dowladda Ethiopia hadday tahay iyo hadday tahay dowlad deegaanka Soomaalidaba waxaanu leenahay heshiis ballaaran oo ku saabsan sidii loo ilaalin lahaa danaha labada dal iyo nabadgelyadiisa iyo sidii loogu wada noolaan lahaa si nabad ah xuduudaha ka dhaxeeya Somaliland iyo Ethiopia runtii haddaanu nahay dowladda Soomaaliya sidaa la sheegay ee wasiirka ugu horeeyay sheegay madaxweynuhuba waxaanu ku taamaynaa inaanu nabad ka dhalino ama waarta lagu wada noolaado haddii la yahay shacabka Somaliland iyo haddii la yahay shacabka Ethiopia labadaba Somaliland iyo Ethiopia waa laba wadan oo walaalo ah dowladda federaalka Ethiopia waxa weeye Somaliland waxa haysaa ixtiraam adag oo aad u weyn ta kale waxaa jiray heshiis hadda ka hor dowladda federaalka iyo Somaliland ay yeesheen oo waxa weeyaan la wada dhana dowladda deegaan ahaan aan ku jirnay dowladda Somalilandna ay waxa weeye maxaa ku raagoob joogay dowladda federaalka oo waxa weeyaan wasaaradda arrimaha dibadda iyo waxa weeyaan gaashaandhigga dowladda deegaanka Soomaalida iyo Somaliland ay u dhanaayeen heshiiskaasna wuxuu ku saabsanaa sidii xadka waxa weeyaan Ethiopia iyo Somaliland ganacsiga xiriirka labada wadan ay waxa weeyaan social network يعني waxa weeyaan xiriirka bulsho la wada adkeyn lahaa marka heshiiskii in la sii xoojiyo yaa ku ahaaday oo waxa weeyaan cadawga waxa weeyaan Somaliland wax cadow ay inuu waxa weeyaan Ethiopia joogin isla markaana waxa weeyaan cadawga waxa weeyaan Ethiopia inuu Somaliland joogin dadkuna ay waxa weeyaan maadaama yihiin dad walaalo ah waxa dadka Somaliland iyo dadka waxa weeyaan Ethiopia gaar ahaan deegaanka Soomaalida dad walaalo ah oo markasta waxa weeye maxaa ku hadan ka wada dhaxayso wanaagooda isku wada xiran yimaadaba yihiin in waxa weeye xiriir wanaagsan markasta la sii horumariyo xiriirka waxa weeyaan nabadgeliyo iyo ka maamul suban iyo ka waxa weeyaan wada shaqaynta ganacsiga intaba in la sii horumariyo markasta la sii xoojiyo ku hadalay waxa weeyaan waxa Somaliland didan oo umba Ethiopia waxa ku hadano gaar ahaan deegaanka Soomaalida Ethiopia marka qoftii aad u sare oo waxa weeyaan wasiirka arrimaha gudaha uu ku jiro wasiirka arrimaha dibadda wasiirro badan ay ka kooban yihiin agaasimayaal ayaan maxaa ku raada arrimaha xadka iyo heshiiskii hore sidaan u soo adkeyn lahayn ka wada hadalay marka aad baan u soo dhaweynaynaa aad baan ugu faraxsanahay shacabka iyo dowladda Somaliland halkan ka salaamaya waxa weeyaan in dan wanaagsan oo aad u wanaagsan ay naga dhaxayso dowladda federaalka siyaasadeeda ugu dambeysay waxa weeyaan Somaliland inay horumarkeeda